maamulka Galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyay hub fara badan oo gacanta u galay maleeshiyada ka soo jeeda Cabud Waaqa. Wasiir ku-xigeenka amniga Galmudug Cali Baashi Cabdullaahi ayaa ka hadlay hub gacanta u galay maleeshiyada ka soo jeeda Cabud Waaqa. Waxa uu sheegay in baabuurka hubka siday markii hore loogu sheegay inay sideen anteenooyin isgaarsiinta ah, balse waxa uu sheegay in markii dambe uu yimid tuhunkaasi oo keenay in maleeshiyada deegaanka ay jidgooyo u dhigteen deegaanka Shiilo Madow, halkaasi uu ka dhacay dagaal toos ah oo saacado qaatay isla markaana u dhaxeeyay maleeshiyadkii jidgooyada galay iyo sidoo kale maleeshiyadkii gaariga waday. Wasiir ku-xigeenka amniga ayaa waxa uu sheegay inay wadaan baaritaano ku saabsan cidii hubka loo siday iyo sababta loo soo geliyay Galmudug. Waxa uu sheegay in walaac aad u weyn ay ka qabaan hubka gacanta u galay dadka shacabka, isagoona tilmaamay inay ka qayb qaadan karaan colaadda gobolka. Cali Baashi waxa uu sheegay inaysan xaqiijin karin in ciidamada nabad sugidda ah ay hubkan ilaalo ka ahaayeen, balse waxa uu xusay in wax kasta la ogaan doono marka baaritaanka dhabka ah la sameeyo.